أنا وحنا علي فؤاد حسن عويل تاريخ ده هدي قرالة ولا دنسلا تاريخ ده كسب مرتنا وإن تقص ميسا أمد الحل كذا حلا وحي كسب مرغف ولي بأبال كيسة إن تقدو وشيء واجب وقف لماذا هذا المولية أمد الصومالي دون الصومالها إذا لك ربحله حيث لي بري أنه صدقني ونحن كنا في مجال البوصاصو وحن صوب مري مجال قرن اللي يهدو marka roob baa wuxuu nagu soo qabsaday markii aanu maraynay magaalada kala bayd iyadoo aan ceel daahir tagu wali soo rogman baanu soo dhaafnay ilaa inta aanu soo soconay ee u dhaxaysay oo dhulkaas wanahay markii aanu maraynay magaalada qardho oo tagi kubana dhex maro oo aanu isiri kani gaarigu way idinka qaadanayaa يعني ورتنا بقرطويدي أهو مجاله وإنه قال لي لها تسجيه هويتي أنا قلبت يده هندسها وحنو قبلينا أن المجال ذا كرر لي له سيدا فضيت كخود عفين وضبع سنين مركب بكي أنا مجال دي نمد كدقني بابو كانوا كدقني بانو قبله ميل برندا على كحرين يقولون بدو حنولي هذا اللي هو قال لك waxay yiraahdeen wad qoysaano inta aan idin geynayne gabadhii la hadasho waxay tiina ayaanay guriga furihiisii ma haysa haabay yiraahdeen saddex gabdhood bay ahaayeen gurigii baa naloo furay markaan cabaar joognay waxaa naloo keenay shaah iyo naloo keenay waxaa la gartay inaanu soo dhaxamoonay cabaar markii aanu isdilay iska baseexdana waxaaba naloo keenay casho la soldaateeyay oo kalluun lagu daleeyay oo baasta ah oo aad maaragtay habeenka ilaa hilibba bislayne noloo diyaar gariyay waxaan yidhi adeer maxaa ku xusuusateen oo waxaa la yidhi ilaa boosaaso roob baa idin soo hayay waxaanu qiyaastay nimanka kani inayan meel ka soo cashayn baanu garanay markaa gurigiinni bay joogaan dabeedna waxaan xusuusanay inaanu gurigii boqortooyada ee rasmiga ahaa aanu nimid boqor burhaan boqor muuse ilaahay raalliha ka noqday markaa wuxuu ka hayay arrin nabadgelyo meesha ka shaqaynayay arrin ugaar Saleebaan iyo Cali Saleebaan laba reeroo sokeeyaa ka dhacday oo muddo doorahoo dhowr iyo 10 sanadood loo taag waayay oo ilaahay ku guuleeyay ayuu markaa ku dhex jiray dabadeed anigu ilaahay habeenkii oo dhan nimankii kale way seexdeen waxaan qiyaasay abaalka ay mudan yihiin ama dadnimada ama sharafka ama boqortooyada de xaq bay igu lahaydba boqortooyada hadaynu inagu reerkaan nahay ama dadka Soomaaliyeedba boqortooyadiisa waa boqortooyadii u asalsanay marka anigoo tix raacay habeenka ayaan ku fikiray markii aan soo noqonay ee aanu aroortii goor hore soo jalmaadnay aanu gabdhaha furihii u dhiibnay ayaa waxaan nimid magaalada la yiraahdo Garowe dabeedna waxaa la yidhi waxay ka timaadeen oo labadii nin kale waxay yiraahdeen waxaanu ka nimid Boosaaso waxaan anigu Boosaaso kama iman Cali Fooda ahaan anigu Boosaaso kama iman anigu Qardhaanka imid dabadeedna waxaa la yidhi warbal Qardhaba ka waray ilaa arrintii boqortooyadu waa kii ku jiray boqorku watiyo arrintaa ka shaqaynayay bal ka waran baa la yidhi marka sida tanaan kaga warbixiyay waxaan markii aan Qardho u kacay qorshe booqasho u tagay odayaal qusuusiya iyo barbaar qaamilaad iyo qurbo joogto qumman saragno qasriyaal gobeed iyo qufan lagu nagaadiyo waxaana lagu qaabilay boqorada qolkoodii raacigii loo dhigay iyo sida loo qadaanayna qalbigaana doogsaday qoraal la warsiiyay dadku inuu qoryaha dhigado qiraa'ada quraanka iyo iskuulada ka qayb galay goortii qaskii baxay samaloo qanjalaxsaday aarkii qabli ma jiray qaankii iyo baanaantii iyo qaalmihii ma baacsado halaqii qaniyada iyo qalacooyinkii daa qoondadii qarsoonayd iyo qodaxdaan ku mudahayn oo dhirtu mira qaraad male deegaan weeye qaniyo qorfo aan lahayn oo nimcada qulqulayso nacawdu waa qabow hawadeedu qarax male qoyskaanu aragnaba qumbayaasha subag iyo qorog caana aatil ciirtuna qabaalada iyo qolqolkay ka buuxdaado awrtu ay qulqulaysaa ummad qiimo badan oo qaadirkay hagaajaan qodobada dastuurka iyo qaanuunka jabin oo la qadariyo baa taal dar xumaanta quuto qowlaysata ah oo qaribaada beelaha
ku qaraabta ma ahayn qabqabdhaafaygii dhacay qardoofooyinkiisii inkastoo raqaaliyahoo qabanqaaban nala galay iyo qaranaytid noo timid lib waxaan u qirayaa hablaha qaranjadoodan quruxdooda yaaboo qolku jiro ahaayoo timahooda qunubaxay qarqarada ka daadegay qoriishaha wejiga iyo sida qaansa roobaad suundhiyaha qaabilay indhaha qamar sidiisa qudha inanka mooye ilkahan qasnayna khaydka loogu xidhay iyo ciridkooda qalinka qorta iyo cabariyaha qalabqaadka heensaha jaaha qalalacdiisaad qorax nuurka moodaan qotonka iyo jooggan ilamaa qun iyo baar meel la qoonsi ku lahayn waqadan haweenoo quwilihii abuuraan ka qaraacin sharaftoo qowlaan ilaahdiya qaafiyada gabay iyo bisa kuma sharixi karo waa duul qab weyn iyo qaryad iyo dhabeel iyo gaari loo khushuuciyo marwo aan la quuray iduu qalanta sharabtay ku qancaan ha joogtay horaa looga quustoo geela qoorta daaqiyo kharash laguma guursado qoshi uba dhaqaaqaanoo qaladay sameeyeen qafalxumo daraaddeed ragga kuma qalloocsheenoo waxaan qiilba loo hayn qasabka gama doonaan qadaf lagu nabcaystiyo qaylo derisku diidiya hadal qaawun kuma maqal haddii aan qureystii qafriyada ka soo bixinoo ifka qaar ku noolayno anna iga qarsoonayn qoonaan ku shaabaho qofna iima sheegin qaamuuska dhaqanka ee qarniyaasha jira ee qaaradaha adduunka iyo qurumuhu ku faanaan qismi bay u yeesheen anna qiira farxaba qalbigayga gaadho iminkan qandhaysnahay baan yidhi oo waxaan la qandhaysnahay jacaylkii iyo farxaddii iga qabtay gabdhaha iyagii wanaagsanee ee reer boqor marka halkaa markay maraysay muddo yar markii la joogay oo halkaa maraysay ayaa hiddi ee dhaqan waxaa laga sameeyey meesha la yidhaahdo magaaladii qardho ayaa laga sameeyey marka waxaa aanu isi soo raacinay abwaan la yidhaahdo abwaan suufi aw cali iyo nin la yidhaahdo murtimeer iyo nin la yidhaahdo yuusuf aadan ayaanu isi soo raacno yuusuf waraaba loo yaqaan yuusuf aadan xasan waa ninka la yidhaahdo yuusuf xasan aadan waa ninka la yidhaahdo halmaan hadalkuma jire marka markii aanu nimid rag fara badan bay marti qaadeen ilaa waxay marti qaadeen beledweyne muqdisho dalka meel walbaba cid bay uga yeedheen marka xafladda nasiib waxaan u yeeshay reer qardho oo shirsan inaan arko oo gabdhahoodii sharafka lahaayee markii hore aan saddexda dee weligeyba dee anigu gabdhaha u aqaanay laakiin aan markaas saddexda xisaabta ku keenay ilaa iminka gabdho soomaaliyeed in badan baan arkayey ama gabdhahooyaga arkayey ama gabdhaha reer qardhood arkayey ama gabdhaha cismaan maxamuud ba arkayey runta marka loo soo daadego oo boqortooyada gabdhaheeda arkayey laakiin ishu mar bay toogataa moogtahay abwaanimadu mar bay arrinta toogataa oo haddaan anigu gabdha ammaanayo dee kuwa reerkayga joogaba markii waan ammaani lahaa moogtahay laakiin gabaygu dhacdi ku yimaadaa gabdhaha dhacdada dhaxalsaday yaan markii dambena si gaara u arkay oo iyaga oo xaflad intay usoo bannaan baxeen sharaftoodii dhisan tahay oo tii ay lahaayeen iyo dee soo diyaargaroobay oo guryaha ka soo baxay baa xafladdii ay hiddihii dhaqankii soo dhigeen meelaan iminka idiin qiyaasi karayn ayay waxay soo dhigeen hiddihii iyo farshacankii iyo midhihii kala jaadjaadka ah iyo wixii ka bixi jiray dalkeenna ahaa dabadeedna halkaa markii aan arkay aanu xafladdii aragnay gabayga kanaan tiriyey markii dambena oo aan ogaaday inay xaq u leeyihiin marka waxaan yidhi suufi abwaanka la yihahdo suufi aw cali oo dad fara badani garanayo yaan ku halqabsaday waxaan yidhi hada gabay baryahan suufiyo waa ka haayiray inuu weydhigaadiye ma marin hoga tuskiisii 8 hal aan halmaan lagu ogeyn hoyga boqortooyo oo aan hubsaday bay bulshada kaga horeeyaan habka qaabilaadiyo murtada hidada loo siiyey aan dul sadaa wuxuu hagaa dunida hoos joogin oo lama huraan ay bulshada kaga horeeyaan hindisaha farshaxankooda iyo helinka taariikhda isu soo hilow iyo wanaag haybad iyo guule hagarshaan gobeed bay bulshada kaga horeeyaan haddii howlgar sooriya la dhigo huri ogaantooda haqabtiridda maamuuska waa nagu hogaanshaane hodantooyo mudan bay bulshada kaga horeeyaan hodantooyo mudan bay bulshada kaga horeeyaane aqalada la heedaamay iyo haradaa muuqda hadhugaa la waran iyo waxaa hama dhinac yaalla sida loo hirgeliyay bulshada kaga horeeyaan qumbayaasha hilan iyo tabada sulan hareertooda isku joog hohoba iyo kabdaha la isu heenseeyey haweenkii sameeyey bulshada kaga horeeyaan odayaal heshiisyada garoodiinta ku hanuunsan dhalinyaro hobshaysoo xarago ku handaraafaysa hablo quruxda qaatay bulshada kaga horeeyaan qardha waa halbowlaha jireehay
haysa dhaqankii qarna waa halbowraha jira ee hibadu saarayda waa hooyadii dhaqanka ee hibadu saarayne hoodiya nasiib bay bulshada kaga horeeyaan aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa reer qardhoodna waa fariinoo diray waxa weeye aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan salaamayaa xataa reer qardhoodkii sharafkaa mudnaa ayaan aad u salaamayaa gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo boqor kulli waa salaamayaa reer iyo daljirna waa salaamaya